السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واي حسي حسوس وانا يحرمي حق دور ان يمادو walaalkay aniga waa fanaankaygi waanki qaaday heesii ugu horeeyay sameeyay awalaadan in soo dhaweeyo inuu imaadoon maamuusamaha waxan uu iga bareeyo waxaan ku khasbanahay hadaan Jabuuti tago sidoo kale uu ku khasban yahay hadaan Kanada tago uu ku khasban yahay maalin dhaweyd baan tagay jigjoogod si gobonimo leh oo sharaf la soo dhaweeyay ajar iyo xasanaad soo dhaweynteeda laga helayne waxa iga mudnaayeen oon maxay heeday uga mahad celinay reejigjiga oon halkan ka hambalyeeyay ka salaamay weeye dadka fiir dhaqaniyay sir wadaagta Soomaalidana hal fariin ma u dirayaayo war waxa idin kala qaybiya ee siyaasadda iyo xuduudaha waxa ka weyn waxa idin mideeya ee aqoona ee dhalashaha ee dhiiga awaale Hargeysa marti kuma aha Cabdullaahi Xasan Ganimaan uga mahad celinayaa oo ii soo sheegay inaan waxaan hayo dhigoon soo dhaqaaqo waan ku khasbanahay waana kala mudanahay reer Hargeysina awaale aadan maaha magaalo uu marti ku yahay ee waa magaaladiisii bahda saxaafadda waan u mahad celinayaa safiirka Jabuuti baan u mahad celinayaa saaxiibanahay waxaan u mahad celinayaa fanaaniinta xidigaha geeska iyo fanka qaybihiisa kala duwan waxaan leeyahay dareenka iyo shucuurta ku soo dhaweyseen awaale waa mid fanku abaalka idinka hayo maaha mid awaalo kaliya idinka hayo awaalona waxay kugu xantaan Soomaaliland buu neceb yahay Jabuuti jecelaw oo jigjiga jecelaw oo Muqdisho jecelaw oo Hargeysa jecelaw horta bismillaahir rahmaanir rahiim waa idinka mahad celinayaa dhamaantiin soo dhaweynta qaaliga ah kulli hadal badan de saxaabtii baa dhamaysay laakiin runtii in mudaaba waan soo socday oo Hargeysa waan ku taaminaan imaado waana magaaladeedii waxaanan aaminsanahay kulli xilligan ka heesay de imika ma hayn oo waxa weeye taasi taariikhda ku jirta inaan mar labaad u soo noqdana de waan ku qasbanahay oo waa magaalo fankayga abaal weyn ku leh fanka Soomaaliyeedna abaal weyn ku leh kulli de anigu nin fanaan aan siyaasi meey kulli aniga fankayga waxa u roon inaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan u heeso Somaliland iyo Jamhuuriyadda Somaliland iyo macaasimadeeda Hargeysa waxay laf dhabar ka tahay ummadda Soomaaliyeed fankaygana laf dhabar bay ka tahay de kulli dadku de kulli fanaan caana marka tahay dadku waxay rabaan de way ka sheey karaan laakiin xaqiiqatan marka laga hadlo anigu afkii aan ku iri hooygii murtida iyo hooyadii abwaanka wax ka dambeeyo ka daba oran karo yaasi jira marka taasi waa xagaas taa markaan ka imanno waxaan u mahad celinayaa runtii dhammaan dadkii ka soo shaqeeyay dhamaatikayga oo uu horeeyo walaalkay iga weyn ahna safiirka Soomaaliland u jooga Jabuuti kawaaliye oo leeyahay runtii aad iyo sariib aad u mahadsan tahay waxaan u mahad celinayaa shaqaalaha cigaal international airport oo si fiican noogu fududeeyay waxaan u mahad celinayaa shaqaalihii xerada diyaaradda ee Jabuuti oo runtii si qurux badan iyaguna noo soo safray waxaan kaloo mahad celinayaa dawladda Soomaaliland oo uu mas'uul ka yahay madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Saylici oo runtii shaqo qurux badan iyaguna nala qabtay waxa kaloo mahad celinayaa dawladda Jabuuti oo si fiican noo soo safarkaas noogu soo dirtay runtii aanu de fanaan waanahay laakiin haddana kulli bulshada isku xiristeeda fanaaniinta ayay shaqadooda tahay Jamhuuriyadda Jabuuti iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland waa dad walaalo oo wada dhashay inaan isku xidhnana waa shaqadayadii waxaan aaminsanahay inaan shaqadayadii uma gudanayna yaan aaminsanahay waad maasati walaal horta anigu qaran uma aqoonsado qaran jirina ma baabi'iyo fanaan baan siyaasi ma ihi meel qaran lagu yagleelo ama qaran lagu sameeyo waligeed ma fadhiisan shirar qaran waligeed ma fadhiisan siyaasi ma ihi qaran ma burburiyo ma garanaysaa ma ihi jabhad ma ihi nin fanaan aan ahay Soomaaliland waa wadankaygi cid iga xigtana ma jirto laakiin waxaan ku sheegayaa adiga afkaaga kiid waa lagu xantaa de waa laygu xantaa lagu ma xariiro ka soo hor baxsan doona mise waad ka gaari doontaa waan ku soo gaaray walaalkay cawaale aadan dehay aad baan soo dhaweynayaa waxaan aad iyo aad u jecelahay kulay wala hadlay oo Abaan Xasan Salabaan xul baa hadlay marka waxaan jecelahay cawaale ku soo dhawow dalkaagii hooyo waa halkaad u qaaday heestii hooyigii murtida iyo hooyadii abwaanka cawaale gacmo furan ba baryaha lagu soo waday soo dhawow waxaan soo dhaweynayaa saaxiibkay cawaale aadan dhammaan fanaaniinta Hargeysa iyo kooxda xidigaha geeska waxaan leenahay soo dhawow
cawaale waxaa kaloo la socda ustaad Alto iyo Ilyas Idris iyagana waxa la soo dhawaada cawaale saaxiib welcome in badan baynaan is arkay